dagaalka hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto Soomaaliya waa looga guulay Soomaaliya waa laga guulaystay haddii aan ku guulaysanana shabaab Soomaaliya looga guulaystay magaciisu kaas uu ahaa waxay u noqday marka shabaab waa looga guulaystay hiiraan taa waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay guulaysatay rajada aan ka rajaynayna iyo ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan inaan fahamsiino istiraatiijiyadda aan ka lehayna dad problem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaada meel un bay ka bilaabataa meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda Soomaaliyeed ee iska dulqaadi lahayd cadawga dul saaran ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan Hiiraan ka seef garayno in naguma filna isnaf maaha ama wax la taaba kara weli maaha ilama aan ka saarno gobolada kale dalka uu leeyahay markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fakirin aragti gobol iyo aragti degmo iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhaxay uusan ahayn haddana qalbi ahaan iyo moraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran xoreyn qaran dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysata in laga kor qaado